hortu waa Oktoobar 15 waxaa maalin cad si barar ah loo dilay madaxweynihii dalka xilligaas. maalin geeridii madaxweynaha waxaa soo ifbaxay hogaamiye ku sifaysan daljecel iyo wadaniyad, asagoo sheegayna in laga bilaabo xilligaasi uu yahay madaxweynaha guud ee xukumayay dalka. kow iyo 20 sano uu hayay xilka dalkana waxa uu magaca dalka iyo magaciisaba ku qoray safxadaha taariikhda, wuxuuna dalka gaarsiiyay heerkii ugu sarreysay xilligaasi. marka laga eego dhanka kale, waxa uu horumaradii baaxadda lahaa ee laga soo shaqaynayay muddadaasi kordhay dheer oo ilaa maantadani ay saameyntiisu taagan tahay. ninka inuu ka sheekaynayno waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo kii ugu xukunka dheeraa ee soo mara dalka, waa Jaale Maxamed Siyaad Barre. waxaynu dukumeentigeena maanta ku soo qaadan doonnaa taariikhdiisa muranka badan. magaciisu waa Jaale Maxamed Siyaad Barre. wuxuu dhashay sanadii 1919 wuxuuna ku dhashay degmada Shilaabo. wuxuuna la noolaa adeeradiisii maadaama ay labadiisii waalid ay geeriyoodeen asagoo yar. Siyaad Barre wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay magaalada Muqdisho. dib waxa uu galay ciidamadii booliska ahaa ee Talyaaniga, wuxuuna noqday askari iyo hogaamiye boolis oo in badan mutaystay in la guddoonsiiyo abaalmarino kala duwan iyo dalacaadyo. dib xorriyaddii Soomaaliya ee sanadii 1960 wuxuu ku biiray ciidamada xoogga dalka oo xilligaasi taliya u ahaa Jenaraal Daawud Maxamed Cabdulle Xirsi. Maxamed Siyaadna waxaa laga dhigay ku-xigeen sanadii 1965 waxaa xarun u geeriyooday Jenaraal Daawud Maxamed Cabdulle Xirsi. Siyaad Barre ayaa noqday taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, halkaas uu darajooyin sare ka gaaray. bishii Oktoobar sanadii 1969 markii la dilay madaxweynihii Soomaaliya ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Maxamed Siyaad Barre ayaa hogaamiyey afgembi militari oo xukunka la wareegay dowladdii rayidka ahayd. afgembigaasi ayaa keenay xukunka gacanta u galo ciidankii xoogga dalka oo markaasi ka faa'iideysanaya faaruqa dalka. wuxuu Siyaad Barrena uu noqday madaxweynaha dalka si afgembi ah. shacabkiina waxay ku soo dhaweeyeen raan iyo caleemo qoyan. durbadiiba wuxuu hirgeliyey mabda'a hanti-wadaagga iyo shuuciyadda, isagoo diiradda saaraya inuu dhiso bulsho cadaalad iyo sinaan ku dhisan. waxaana lagu dhawaaqay in dowladda ay la wareegi doonto dhammaan ilaha dhaqaale ee dalka. Siyaad Barre wuxuu hirgeliyey ololihii bar ama baro iyo qoridii afka Soomaaliga oo aad uga qayb qaatay ololahaasi, taas oo bulshada Soomaaliyeed lagu gaarsiinayay aqoonta waxbarashada miyi iyo magaalaba. sidoo kale waxa uu ka shaqeeyey horumarinta adeegyada caafimaad oo la gaarsiinayay dhammaan gobolladii dalka. sidoo kale waxa uu soo saaray nidaam iska wax u qabso ah oo lagu dhisay waddooyinka, dugsiyada, isbitaalada iyo mashruucyo kale oo dhowr ahaa. sanadihii dambe xukunkii Siyaad, Soomaaliya waxay gashay xaalad dhaqaale xumo, taas oo ay keeneen cunaqabateynyo caalami ah iyo musuqmaasuq ka dhex jira maamulka dalka. taasina waxay sababtay in dowladdiisu ay bilowday inay lumiso taageeradii bulshada iyo danayntii arrimihii dalka. kadib arrimo badan oo is urursaday ayaa keenay isku horimaad ka dhexeeya shacabka iyo dowladda, waxayna bilowday dowladdii inay isticmaasho awood ciidan oo ka dhan ah kooxihii iyo qabiiladii ka soo horjeeday. oo maalin cad ayaa diyaaradihii dalka lagu duqeeyey shacabkii, taa oo keentayna khasaaro badan iyo kacdoono qabiil ku salaysan, gaar ahaanna gobollada waqooyi oo halkaasi ay ka socdeen dagaallo iyo dilal la xidhiidha arrimo siyaasadeed. oo malaayiin Soomaaliya ayaa lagu xasuuqay, qaar badanna ay noqdeen xooti ayna iska dhiibeen dalkii deriska ahaa. dalkana waxa uu noqday mid jabhaduhu ay u kala tartamaan maamulkiisa, gaar ahaanna caasimadii dalka ayaa buuxdhaafiyeen jabhado u dagaalamaya magaca qabiilkooda. wuxuuna dalka ula kulmay cadaadis xooggan oo kaga imaanayo jabhado qabiil ku salaysan, kuwaasi oo ugu dambeyntii
sababay in xukunkii Siyaad laga tuuro bishii Janaayo 1991. Markii dowladdii Siyaad ay burburtay, Soomaaliya waxay gashay dagaallo sokeeye oo ba'an oo ilaa maanta raadadkoodii lagu sii arko. Si kastaba ha ahaatee, Siyaad Barre waxa uu noqday hogaamiye lagu xusuusto inuu isku dayay Soomaaliya inuu ka hirgeliyo dowlad hanti-wadaag ah oo midaysan, inkasta oo uu ahaa keligii taliye aad u neceb kuwa ka soo horjeeday iyo kuwa ka fikirka duwanba. Jaale Maxamed Siyaad Barre kadib markii lagu tuuray xukunka, waxa uu wareegay magaalada Lagos ee dalka Nigeria, halkaasi ugu dambeyntiina ku geeriyooday Allah u naxariistee sanadii 1995. Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa hogaamiye si weyn u saameeyay siyaasadda iyo taariikhda Soomaaliya. Dad badan ayaa ku tilmaama inuu ahaa hogaamiye isku dayay inuu mideeyo Soomaaliya, halka qaar kalena ay u arkaan inuu ahaa keligii taliye gacan sareeyay xuquuqda aasaasiga ahayd ee dadweynaha. Saameyntii Siyaad Barre iyo raadadkii uu ka tegay waxay ahaayeen kuwo si cad u muuqda ilaa maanta, iyadoo Soomaaliyana ay weli ku jirto dadaal ay ku raadinayaan xasillooni iyo dib u heshiisiin.